magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Dilxu waxaan hees dareen la wadaagay degmada Axmed Jab markaastan hadda qaaday waxay tahay aniga ugu soo dareenkayga marka qofkii dhalinyarada wax dareema uu dareemi kara qof walba dhibkiisa uu ka turjumi kara ma dhawaan dhacda waxay u dhacday 2009 bishii 6 bay ugu dhacday u daliishadeen marka wallahi kullee ba waxay ii daliishadeen ayaga baa ogaay aniga inaan dhalinyarada baan iska ardaya deeyo markaas xaafadiisa jooga halka degmada daynii laban deganaa laakiin waxa wax ka bari jiray degmadan oo holwadaag waxaan rabaa inaan Cabdiqaadir Sacmar asaasiisan dhamaantiinba Instagram-kaygu igala soo xidhiidhay markaan arkay gacantiisii midig iyo gacantiisii iyo lugtiisii bidix oo markaan qiirooday iyo markii aan dareemay inaan xamar ay u baahan tahay nabad iyo nolol Sacmar asaasiya gudoomiyaasha iyo xildhibaaniinta oo dhammaan waana ninkii aan Instagram-ka markuu igala soo xidhiidhay oo sheekooyinka iyo qisooyinka wixii ku dhacay oo wixii dijiswaadka magaaladan mar labaad Sacmar aksan walaalkiisa mid baan ogahay walaaltinimo sinjiyo dareen iyo Soomaalinimo xuduud ma laha waa ninkii baray Sacmar aksan Cabdiqaadir عاون هسوني قضية
waxaan ku soo dhaweynayaa مسكح غافل كما نقل غير كينا كما عين قارب البارو قاربي ودد كيسي غير ذا وطني نمو وحانا هاي لغيب صدا قلبي غيب موجل مسكح غافل كما نغل غير كينا كما عين قارب البارو قرنكي وتدكيسي غير ذا ودني نمو وحانا هاي لغيب صدا
waxaan ku soo dhaweynayaa